السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز سoo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin maanta waa isniin waana 21 bisha 7 ee July sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa maanta dhammaantiiba inaan idinku la wadaago arrimo ku saabsan ICE Trump 6 bilood ayaa u buuxsantay imise qof ayaa la masaafuriyay imise ayaa dambiilayaal ah maxay yihiin tallaabooyinka cusub oo ICE ay qaadayaan oo ay doonayaan in ay ku ogaadaan qof kasta oo wadanka sharci darro ku jooga sidoo kalena waxaa jirta in maamulka Trump ay shaqada ka ceeriyeen 17 garsoore oo maxkamadaha immigration-ka fariisan jiray ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay imise garsoore ayaa shaqada laga ceeriyay ama si mutadawacnimo ah uga tagay iyo dadka wadanka Mareykanka ama sharci ku imaaw ama qaab sharci ah ku imaanina haddii green card-kaada uu ka lumo ama dadka intay baasaboorkii gaareen aan xareysanin oo green card-kii uu ka dhacay maxaa ku dhici kara markay cusboonaysiisanayaan qof wadankan joogay 38 sano ayaa la masaafuriyay arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada marka Trump shalay waxa uu buuxsantay 6 bilood oo xukunka hayay 6 bilood dadka la masaafuriyay imise ayaa dambiilayaal ah ayaa waxaa faahfaahiyay madaxa ciidamada ICE ninka sida ku meel gaarka ah u sii haya ninkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Todd Lyons waxana uu sheegay wareysi uu siiyay telefishinka CBS axadii oo shalay ahayd in ay qof kasta oo wadanka sharci darro ku joogaan oo ciidamada ICE ay helaan qof kasta oo wadanka sharci darro ku jooga in ay qabanayaan isla markaana qofkaasi la masaafurinayo arrintan waxay qayb ka tahay uu yiri dadaalka madaxweyne Trump uu wado oo ah dadka wadanka sharci darrada ku joogo in la masaafuriyo waxa uu sidoo kale sheegay in haddii qofku xitaa uusan dambi lahayn in ay masaafurinayaan laakiin marka hore deeradda la saaraya ayuu yiri dadka dambiilayaasha ah ee wadanka Mareykanka dambi ka galay ama xabsi ha ku jiraan amaba ha ka soo baxaan waxa uu sidoo kale sheegay inay bartilmaameedsanayaan shirkadaha shaqaalaysiinaya dadka aan fasax u haysan inay wadankan ka shaqeeyaan oo kaarka shaqada aan haysanin in iyadana sidoo kale arrintaasi ay muhiimadda saarayaan waxa uu Todd Lyons intaasi ku daray in marka hore muhiimadoodu ay tahay worst of the worst kuwa ugu xun ee wadankan jooga ee dambiilayaasha markaas kadibna waxa uu sheegay dadka sharci darrada ku jooga wadanka iyaguna in aysan meesha ka marnayn Todd Lyons ayaa sidoo kale waxa uu u digay gobolada iyo magaalooyinka sanctuary cities-ka kuwaasi oo aan wada shaqayn la lahayn ciidamada ICE waxana uu sheegay in loo baahan yahay dadka aan muwaadiniinta Mareykanka ee wadanka sharci darrada ku jooga Mareykankana ku nool xitaa haddii aysan dambi lahayn loo baahan yahay inay gacanta u soo geliyaan ciidamada ICE waxa uu sheegay inta howlgalada ciidamada ICE ay ku jiraan iyagoo qof bartilmaameedsanaya oo bartilmaameed u socda haddii markii ay meeshii tageen oo qofkii bartilmaameedka ay gacanta ay ku soo dhigeen isla markaana ay arkeen dad kale oo sharci darraha la jooga in iyagana dadkaasi gacanta ay ku soo dhigayaan isla markaana ay soo qabanayaan waxa uu Todd Lyons ninka sida ku meel gaarka ciidamada ICE madaxda ugu ah intaasi ku daray in ay suuragal tahay in 1 milyan oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu doonayo sanad kasta inuu masaafuriyo 4 sano uu xilka hayo inay suuragal tahay targetkaas madaxweynaha in la gaaro waxana uu sheegay lacagihii hadda sharciga Big Beautiful Bill ku jiray oo ciidamada ICE ay noqdeen kuwa ugu badan ciidamada Mareykanka lacagta ugu badan sharcigaasi ay ugu jirto in halkaasi milyan ay suuragal tahay in sanad kasta la masaafuriyo oo madaxweynuhu oo bartilmaameed ka dhigtay hadda 6 bilood oo maamulka Trump uu xilka hayay waxa ay ICE masaafurisay ku dhawaad 150,000 oo qof iyadoo sidoo kalena muddadaasi 6 bilood sida xogta dawladda ay sheegayso laga soo bilaabo 1 bishii January ee sanadkan ilaa iyo 24 bishii June ee hore ee dhamaatay 70,000 oo ah dad dambiilayaal Mareykanka dambi ka galay ayaa sidoo kale la masaafuriyay haddaba lacagaha Big Beautiful Bill ku jiray oo madaxweyne Trump 4 bishan uu saxiixay maxaa ugu jira ciidamada ICE horta marka la yiraahdo guud ahaan border security-ga ama sugidda xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico
sharcigaas in ka badan 150 bilyan ayaa loogu talagalay 46.5 bilyan waxaa la siiyay ciidamada xuduudaha ilaaliya waxaana qayb ka ah lacagihii darbigii qabyada oo Trump afartii hore oo madaxweynaha uu qabyada ugu tagay in lagu dhameystirayo 45 bilyan waxaa loogu talagalay balaarinta xarumaha dadka marka la soo qabto lagu haynayo ayaa loogu talagalay 29.8 bilyan ICE ayaa loogu talagalay marka ICE lacaga ku filan hadda waa ay haystaan sidaas darteed howlgaladooda hadda waa ay balaariyeen 13.5 bilyan waxaa loogu talagalay gobolada iyo sidoo kalena booliska magaalooyinka kala duwan in ciidamada ICE ay kula shaqeeyaan ayaa loogu talagalay marka waxay yiraahdeen lacagtiina loogu talagalay hadda waan haysanaa marka waa inaan howlgaladeena balaarinaa xarumaha dadka lagu haynayo balaarinteeda marka aan ka hadlo wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ayaa waxa uu waraaq u diray 15 bishan guddiga Congress-ka ee qaabilsan ciidamada qalabka sida iyo waliba xildhibaanada ka soo jeeda gobolada New Jersey iyo sidoo kale Indiana ee ku jira aqalka wakiilada waxana uu sheegay in laba xarumood oo military oo ciidamada militariga ay leeyihiin hadda loo bedeli doono meel dadka la soo qabta ee sharci darada lagu hayo labadaas xarumood waxay tahay xare la yiraahdo Camp Atterbury oo ku taala gobolkan Indiana magaaladan aan joogo 40 mayl u jirta ilaa 45 daqiiqo oo ciidamada National Guard-ka lagu tababari jiray in laga dhigo meel lagu sii hayo dadka sharci darada marka la soo qabto ilaa 1,000 qof ayaa lagu hayn doonaa xeradaasi militariga waxaana xeradaasi ay tahay mid 34 ekara xero kale oo waxaa jirta sidoo kale la yiraahdo McCready Dix Landhurst oo ku taala iyaduna gobolka New Jersey iyaduna waa 42 ekar labadaasi xarumood ee military hadda waxaa laga dhigi doonaa meel dadka sharci darada marka la soo qabto lagu hayo xeradii kale waan ogeyn Florida laga furay bishii hore ee Alligator Alcatraz oo hadda iyadana dadka lagu hayo walow xildhibaano booqday ay yiraahdeen xaaladda nadaafadda iyo nolosha dadka la geeyay ma ahan mid wanaagsan oo aad ayay u xun tahay sidoo kale ICE talaabooyinka cusub oo ay qaadayso oo ay doonayso dadka sharci darada ku jooga Mareykanka inay ku ogaato waxa kamid ah in hadda heshiis ay la gaartay Medicaid oo xogta dawladda ee kaarka caafimaadka ee dawladda dadka la siiyo oo 79 milyan ah in hadda ay heli karaan magacyada dadkaasi adereesyadooda iyo waliba dhalashadooda si ay u ogaadaan dadka sharci darada ah ee kaarkaasi caafimaadka la siinayo ee Mareykanka sharci darada ku joogo horey waxaan ogeyn ICE iyo hay'adda canshuuraha ee IRS inay heshiis horey u gaareen oo ah dadka sharci darada ah ee Mareykanka ka shaqeeya canshuurtana xareeya si ay xogtooda u ogaadaan haddana Medicaid ayay la gaareen sidoo kale hadda waxaa jirta in dadka guryaha iska leh ay ICE u soo dirayso adereesyada isla markaana ay leedahay waxaan rabnaa heshiisyada dadka guryaha degan ay saxiixeen iyo sidoo kalena rental application-ka codsiga qofku marka uu guriga kireysanayo uu xareeyay ayaan doonaynaa inaan ogaano marka waxa ay doonayaan dadka sharci darada ku degan oo degan guryahaasi inay ogaadaan guryihii waa la isugu soo galay goobihii shaqada waa la isugu soo galay kaarkii caafimaadka waa la isugu soo galay IRS-tina sidoo kale meel kasta oo xogta dadka sharci darada ICE ay ka heli karto hadda gacanta ayay la galaysaa marka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan ogaano dadkaasi sharci darada dhinaca goobaha dadka lagu haynayo haddii aan dib ugu laabto Tom Harman oo Trump xil saaran arrimaha xadka iyo masaafurinta waxa uu yiri hadda 60,000 oo sariirood ayaan haysanaa oo dadka sharci darada meelaha la geynayo marka la soo qabto laakiin waxaan doonaynaa inaan 100,000 aan gaarsiino marka sidaasi ayaa sidoo kale leedahay ay sidoo kale talaabooyinka waxa kamid ah dadka marka la xiro qofka waxa jiri jirtay maxkamad lagu dhageysanayo in damaanada lagu sii daayo iyo in kale hadda ICE meesha waa ay ka saareen qofka marka la xiro maba jirtaba dhageysi maxkamadeed oo qofkan in damaanada lagu sii daayo ah maba jirtaba gabi ahaanba meesha waa ay ka saareen marka waxay kamid tahay talaabooyinka ay doonayaan dadka inay ku sii hayaan si dadkaasi ay ugu diyaariyaan in ay masaafuriyaan talaabooyinka ICE sidoo kale hadda ay soo rabto ayaa kamid ah maamulka Trump ayaa sidoo kale waxay shaqada ka ceyriyeen 17 garsoore oo maxkamadaha immigration-ka fariisan jiray 10 gobol ayaana laga kala ceyriyay goboladaasi waxay kala yihiin California, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New York, Ohio, Texas, Utah iyo Virginia 17daasi garsoore waxaa laga kala ceyriyay maxkamada immigration oo goboladaasi 10 gobol ah ku yaala sida ay sheegeen ururka matalaya
garsoorayaashaasi maxkamadaha immigrationka ee maamulka Trump uu shaqada ka ceeriyay. Waxaana ururkan ay sheegeen ilaa iyo maamulka Trump markii uu xilka la wareegay inay jiraan 103 garsoore oo maxkamadaha immigrationka fariisan jiray oo ama shaqada laga ceeriyay ama waraaqihii maamulka Trump uu u diray shaqaalaha federaalka ay ahayd shaqada isaga taga si mutadawacnimo ah iyaguna shaqadii isaga tagay. Congressku waxa uu ansixiyay 800 oo garsoore oo maxkamadaha immigrationka fariista, laakiin hadda waxa ay leeyihiin midowgan 600 oo garsoore oo kaliya ayaa jirta oo maxkamada immigration, iyadoo sidoo kalena arintaasi ay hadda jirto oo garsoorayaashiina shaqada laga ceerinayo walay isgaareen kiisaska magangelya doonka oo 3.5 milyan ay marayaan kiisaska magangelya doonka ee weli aan go'aan laga gaarin. ugu dambeyntii arintan waxay qusaynaysaa dadka green card-kooda uu ka lumay ama xitaa wadanka Mareykanka sharci ku imaaw oo green card-kaadi 10 sano intuu ka dhacay baasaboorkii aadan xareysan mar lagu cusboonaysiiyay haddana mar labaad uu ka dhacayo. haddii green card-kaada uu ka dhaco aadna citizen ahayn waxay tahay Mareykanka inaad sharci darro ku joogto waana lagu masaafurin karaa. dad badan oo Soomaaliya ayaa arintaasi sameeyay. haddaba ninkan awoowaha ah maxaa ku dhacay? nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Chile oo muddo 38 sano ah Mareykanka ku noolaa magaciisana la yiraahdo Luis Leon ayaa green card-kiisii uu ka lumay. ninkan Mareykanka waxa uu yimid sanadkii 1987 waxa uu ka soo cararay magangelyo siyaasadeed ayaa la siiyay. xukunkii xilligaasi ka jiray wadanka Chile oo Augusto Pinochet uu hogaaminayay ayuu ka soo cararay. ninkan marka waalidkiisii ayaa ka lumay oo green card-kiisii uu ugu jiro. inta badanna waa khatar inaad ku qaadato waalidkaada sharciyada muhiimka walow hadda meelaha qaar la isweydiinayo oo muhiim ay tahay inaad qaadato. markii uu ka lumay xaaskiisa ayaa ballan xafiiska immigrationka uga qabatay si loogu soo cusboonaysiiyo green card-kiisii. markii uu tagay xafiiska immigrationka xaaskiisina ay la socoto 2 ays ah ayaaba sugaysay waa la qabtay waana la xiray. xaaskiisina muddo 10 saacadooda ayaa isla dhismihii lagu hayay. markii dambe qof qaraabadiisa ayaa ka soo doonay xaaskii oo meeshii ka waday ninkiina waa la xiray. ninka waa la waday Minnesota ayaa lagu xiray kadibna waa la masaafuriyay. qoyska marka wax wara ayay ka waayeen. arintaas xilliga ay dhacayso waa 20kii bishii la soo dhaafay ee June. waxa uu qoyska uu leeyahay qof ayaa nala soo xiriiray iska dhigaya lawyer ama qareen oo dhahaya waxaan doonayaa inaan idin soo daayo qofkaas idinka xiran. qofkii dumarka ayaa wuxuu soo wacay leeyahay 9kii bishan waxana uu noo sheegay in uu dhintayba ninkii la xiray oo meeshii lagu xiray uu ku dhintay. laakiin waxay leeyihiin waxaan ogaanay hadda in isbitaal ku yaala wadanka Guatemala uu ku jiro oo xanuunsan yahay. ninkan nin oday ayuu ahaa oo awoowe ah ilaa iyo 38 sanana wadankan joogay waa 82 jir. waxa la leeyahay marka waxa ku kacay macaankii dhiikarkii wadna xanuunna waa uu qabay. hadda qoyskiisu marka waxay sheegeen qof jili jooga inuu ogaaday oo qoyskiisa Mareykanka uu la soo xiriiray. qoyskiina hadda isku dayayaan inay ku booqdaan xabsiga Guatemala oo ku xanuunsan yahay. waxaana sidoo kale ay sheegeen hadda arintan in ay baarayaan. marka dadka inta Mareykanka yimid oo iska shaqaysanayna green card haysanaa sharciga baasaboorka ma xareynayna dhalashada oo mar 10 sano ay ka dhamaatay oo ka dhacay haddana mar kale uu ka dhacay welina aadan xareysanin sharcigaadi arintaasi waa lagu masaafurin karaa ogow. haddaba maxkamadihiina waa la isku sugayaa, xarumihii immigrationkana waa la isku sugayaa, guryihii waa la isku sugayaa, Medicaid-ki waa la joogaa. waa arrin la yaab leh marka ICE meel kasta oo ay ka heli karto dadka sharci darada xogtooda waa gacanta ayay la galaysaa. arrimahaas ayaan rabay inaan idin socodsiiyo. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.